بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين walaalayaal Soomaaliya oo dhan Soomaali meeshay doontaba ha joogtee salaanta islaamka ayaan ku salaamaya marka kadibna waxaan jecelahay inaan laba qodob ama qodobka ka dambeeyo inaan ka hadlo ka u horeeya waxa weeye dadka walaalahaya ee Soomaaliyeed ee Gadabuursi ayaan doonayaa inaan la hadlo Gadabuursiyow idinka iyo ciise wax dhibaato ah oo dhul sheegasho ah oo idinka dhacay weligeed ma jirto sidaad u tafiirmanteen ciise meel walba waad kula nooshihiin saylac waad kula nooshihiin jabuuti waad kula nooshihiin dirdhaba waad kula nooshihiin meel kasta oo joogaanba waad kula nooshihiin ama ay degan yihiin dhibaatadan oo kale mar ay dhacday ma jirto mana dhicin mana maqlin mana jirto hadday naga horeysayna ma maqlin inta aan jirna hadday tahayna ma jirin ma arkin marka maxaa maanta keenay bal ii sheega maxaa keenay maanta dad walaala ah dad isla dhashay dad ilma abti iyo ilma habrawadaag isku ah iyaa tihiin maanta in aad ma ogtahay yacni hub isku qaadataan oo ninba abtigii uu dilo ama abtiba inankii uu abtiga uu ahaa uu dilo habrawadaagii ay isdilaan ya labada hooye ay dhashay labada walaala ah ay dhashay inay isdilaan in ay dumarkiinnii ay ilmahoogii ku waayaan oy goblamaan oy dhibaata ku dhacdo sidaas si la eg idinkuna aad yeeshaan maxay ku dhacday maxay ku dhacday ma waxaad maqasheen afartan propagandaha wadda horta korkaan hadlayo iga raalli ahadee Gadabuursi uma wada dhanna Gadabuursi in badan oo sharaf leh oo qiimo leh oo reer abtigeed aanan ma ogtahay in mithqaala dharra loo geysto jeclayn way jiraan inta kale waxa weeyaan in uu shaydaanku iska daa qowmiyado iyo qabaa'il laba walaala iyo habiil iyo qaabiil oo wada dhashay buu kala geeyey bal fiiriyo marka shaydaan caynkaas oo kale ah kuwa ay dhegaysanaya oo ka qaadanaya lacag iyaa meesha jooga ee Gadabuursi uma dhanna taasi waan hubaa waxaa ka mid a dadka ma ogtahay lacagaha bixinaya ama shaydaanada ah ee ma ogtahay balaayada wadwada dee midkood haddaan kasoo qaad ma wada tirin karaya ilaan waa kuwa youtuberada ah bal airo tv ma dhegaysateen waad dhegaysateen waad ka daragsan tihiin mid waxyaalaha uu ku hadlaya mid keliyataan ka soo qaadanaya ee janeelkiisa ku jirta janeeladiisa oo meel kasta oy jiraan wada joogaan inuu isku gubo doonayo war bal muu miduun isku gubo inta kale ku nabadgeliya Gadabuursiga muu dirdhaba ku nabadgeliya muu jabuutida ay ku nool yihiin maanta arsaaqadoodii oo dhan ay ku xidhan tahay ay ku nool yihiin ku nabadgeliya ah intaba uu ku gubaya iska daa zaylac waxba kuma hayaan ee dhulka ay ku nool yihiin ay arsaaqadu ka soo galaysay dadkoogana ka nooleynayaan muxuu ugu gubayaa wuxuu taagan yahay baan idiin sheegaya haddaba muxuu ugu gubayaa kolkaan idin leeyahay kolkuu ingiriisku iyo faransiisku ay soo
doonayeen inay dhulka yimaadiin iyay soo direen nin markaa iyuu ninkii yimiday uu baadhay iyuu dhulkii iyuu noqday maxaad soo aragtay bay yidhaahdeen waxaan soo aragnay waa afkiisii un hadal kuma daraya anu waa igu xaaraan weeyaan intii dhegaysatay way dhegaysatay intii aan dhegaysanin ha dhegaysato waad arkaysaan intii uu ku hadlay maan ku hadlayaa waxaan soo arkay xoolo wata iyo dad xoolo wata iyo boqortooye dad xoolo wata waxba naga qaadi maayaan xoolo watana waxba naga qaadi maayaan boqortooyada noogu darana waa intee waa boqortooyada ay taariikhdu sheegtay baan garan lahay boqortooyadan uu sheegay taariikhdu sheegtay ayaan garan lahay waa jabuuti ilaa hargeysa ilaa boorame ilaa jigjiga ilaa harar ilaa dirda bal ninkaa iyo maskaxda bal fiiriya haddaba ninkaasay haddaba odaye iyo dhalinyaro ay moogtahay ka dhagaysanayaan wax markaasay yidhaahdeen xoolo wata waxba naga qaadi maayaan dad xoolo watana waxba naga qaadi maayaan boqortooyada noogu darana boqortooyada waa inaan kala googoyna kolkaasuu faransiisku qayb qaatay ilaa saylac uu qaatay uu jabuuti iyo dhulkiis ilaa saylac ilaa dhulkii aan deganayn oo dhan naga soo eriyey uu nagu soo shubay boorame uu ciisabaadiye ka keenay galbeedka ciisaha ee baadiyaha oo ka soo guray uu keenay halkan jabuuti waayahay ingiriiskiina jigjigu wuxuu naga soo eriyey hargeysuu iyo berbereo wuxuu iskugu kaaya keenay boorame qaybtii kale jigjiga ilaa iyo harar iyo dirdhabana waxay kula heshiiyeen etoobiya minilig bay kula heshiiyeen oo etoobiyay siiyeen oo etoobiya qaadatay saasaa lanoo kala googooyey buu ku leeyahay warma waxaasaa caqligala ummadaha dhan ee deganna aw balfiiriya oo kolkaa haddaba boqortooyadaas haddaba uu sheegay qarnigay dhacday oo halkay jirtay oo maxaanku idhahday taariikhday leedahay ee intaasoo dhula xakumanaysay kaasoo kale weeyaan waxa aad dhegaysanaysaan dadkan ma ogtahay caqliga xum ee dhalinyarada iyo odayada ee lacagaha guranaya ee gadabuursi uma dhanna gadabuursiyow dadka caynkaas u hadlaya iyo sidaas ha maqlinaha dhegaysanina saylac baan leenahay iyo heeblaayaan leenahay ma jiri jirin midna midka kale uma sheegan jirin ciisena uma sheegan jirin gadabuursina uma sheegan jirin weligeedna intuu ninkaasi hadin ka hor qarni iyo qarniyo waa la wada deganaa meel kastaba marka weligeedna mithqaala dharra dhibaato ih kama dhex dhicin ciisiya gadabuursi weligeed taariikhdan idinka warramaye jacaylka iyo abtinimada ay isku qabaan ciisihiyo gadabuursigu labada dhinacba waxa dhacday 53 waan u taagnaa waan yaraa inkastoon yaraa waxa dhacday xurguf ciisiya gadabuursiga ah xagga dhulka ay wada degan yihiin kolkaasuu ciisuhu ka soo qaaday 400 oo halaad taariikhda inaan been ka sheegayo iyo in kale qolada aan sheegi doono iyo reerka aan sheegi doono iyo cidda aan sheegi doono way joogaan weli ilaa maanta waa qiso dhacday oo taariikh oo ilaa ingiriiska moogtahay waad ogaan kartiin 400 ee halaad kolkii laga soo qaaday iyo odayga qaalib giira la yidhaaho magaalada hadhagaala bartankeeda istaagay uu yidhi ciisow reer abtigay 400 oo halaad baad sheegaysaane hal qura kama soo qaadi kartaan iminkada halkaa geeli oo
inaad ii soo joojisaan oday laga dambeeyo maadaamuu ahaa 400 halaad baa la soo joojiyey kolkaasuu rag intuu raashin iyo wax walba siiyey ku daray uu yidhi geeya geelan halkii laga soo qaaday ingiriiskaa kolkaas somaliland haysta ingiriiskii baa farta laga geliyey haween reer geediya oo ciidankiisa ku jiray iyuu u dhiibay uu yidhi halkii laga keenay geelan halkiibuu ninkii ku celiyey abaalgudkii iyay gabadh dheer oo taagan ka soo dhaqaajisay oo geeraaraysoo leh haddii dunidoo dhan la duubo bal fiiri hadda oo ragoo dhan dooro la iidhaa qaalibgiiru qalbigu ii sureerayaa oo magaaladii hadha gaala timid oo bartanka dariiqa bartankiisa istaagtay oo ku dul heesaysa inankiis gabadhaa waxaa la yidhaahaa reer haddaba ta aan sheegay reerkoogii aan ku leeyahay gabadhaa waxaa la yidhaahaa cadar xaddi baa la yidhaha reer xaddi kolkaa way nool yihiin dee ama walaalaheed ha ahaato ama adeeradeed ha ahaato ama ya reer xaddi way nool yihiin cadar xaddi baa la yidhaha cadar xaddi qaalib aabbihii inankiisii iyaa qaado aqalkiisa geey markaysaa tidhi qaalib kolkaa wuxuu qabaa 3 dumarana oo midib magaalada tahay 3na labana baadiyaha tahay midna baadiye ah oo saddexaadna ay u doonan tahay u mehersan tahay 4taa buu qabaa 3 baadiya iyo mid magaalada ah kolkaa tii magaalada iyaa tidhi oo dee aqal weyn oo talyaanigu u dhisay oo maogtahay dhagaxa hoo weyn oo aqalka keliya tahay dhagaxa magaalada dhagax ka ah oo dhowr maqsin oo dhowr aqal oo islaan kastaba aqal maqsin aqal uu ku magac dhabay inay leedahay kuwa baadiya iyo kuwa magaalaba iyaa deganay iyaa tidhi haddaba anigaa weyn oo 4taba ka weyn taa yar ee magaalada intaasoo kilomitir u soo socotay ee maogtahay arrintaasna lama celin karo taa iminka la doonay ee la meheriyey eena aanan weli la soo gelininna lama celin karo oo lagama noqon karo anaa weyn oo u bannaynayo bal dadka ee kolkaas say ahaayeen dumarka iyo dumarkan maanta qaylqaylgay anaa u bannayn bay tidhi gabadha yaree halkaa buuraha ka soo dhacday lama celin karo xaaraan taa yaree maanta la doonayna lagama noqon karo anaa weyn oo u bannaynaya hase ay nabad ugu noolaadaan 4 5na ma noqon karayn markaas ii bannaysa kolkaasuu soo qaaduu geliyey aqalkii waxay dhashay cadar xaddi 6 bay dhashay 6dii waxay 2 london bay joogaan midna holland jarmankuu joogaa 3dii kale hadhayna waxay joogaan canada bal fiiriyo haddana weliba halkii kama ay joogini tii kuwii canada joogay oo tii 3 tii ugu weyni ugu yarayd iyo haddana gabadh ay dhashay ilaa iyo buuraban la tagtay oo doona inay u dhisto way ninkana warqada u soo samayso oy keento canada bal fiiriya marar abtigay macnaa ilan ciise oo dhan nin ugama ay waayin ama ay dhaqaalayso ay ka qaadeen oo abtinimadii kolkaa waxa weeye waxaan leeyahay saasay dadku isku ahaayeen dadku saasay isku ahaayeen wiil iyo abtigii weyn wiil iyo abtigii maad maanta isku dilaysaan inay isdilaan wiilkiina uu abtigii dilo abtigiina uu wiilkiisii dilo oo walaashiina ay ku
dhibaatood. Kolka inkastoo dadka aan la hadlay hadda waad garanaysaa waa dadka aan sheegay dadka ma ogtahay shayaadiintu ay maskaxda ka qaaday weeyaan lacag qaadashada jecel ee maxaan ku idhahdaa maaha samaroon oo dhan samaroon uma dhanna sheekadan maanta socota waa dad shaydaan wado maalan baan matal yaroo kalean idin siinaya waxa weeye kan iminka maanta xoolahan gadabuursiga ninka gadabuursi loo waday ee laga keenay galbeedka raggan dilaya ee ma ogtahay xoolihiina dhacay waa leeyihin mise wayfayoobin war xoolo iyagu ay leeyihiin oo lacag laga bixiyey iyagu leeyihiin soo maa ma ay fahamsaneen ciise niman bay u bedilayeen ay xoolaha u dhacayeen gadabuursi inuu leeyahay iyan kale ma ay garanayn hadday garanayeenna waa u kaseen dee kolkaa inay ciise un dhacdaa ku dilaan taasoo kale weya waa dad saas ah waa xoolahoogii waxay dhacayaan midaan anigu sameeyen han idinka warrama idinku yar biiriyo iga raalli ahaado waan idinku dheereeyey jabuuti baan tegay oo waxaan u tegay majliska gadabuursigu uu fadhiyo ee madaxda iyo wasaarooyinka iyo dirigteeradu ay fadhiistaan ninkii garan baa garanaya waxaan ka idhi reer abtiyaalow nimankan aad isku diraysaan idinka iyo reerahan kaliba eed lacagaha u diraysaan maad kala daysaana dad isdhaldhalay weeyaan dadka aad isku diraysaan waxay la socda faarax laangada nin la yidhaaho oo beeteeda ka dirigteer ahaa marka waxay yidhahdeen 10 caynkaaga haddii la heli lahaa dee waxba ma dhacin maxaan u tegay waxa weeye ka hor baan dir dhabe aan ururiyey dhallinyaro oon idhi war bal 40 dhallinyaraa iisoo ururiyo oon guursanin anaa raashin iyo waxa walba ay u baahan yihiinna siinaya halkaa iyo samaroon u taga 40 sidaa iyadaa noo soo saara dhoo wada tashada war dhul haddii aad u baahantihiin ina kacsha annaga 40kiinaana idiinna dhisayna idiin geynaynana ilaa galbeedka dhaha dhulkaasoo dhan waan wada lahaanaynaa wada degaynaa wada qaadansanayna waayahay bay yidhahdeen kolkay iga tegeen ay wada tashadeen 40 isku yimaadeen bay yidhahdeen dee hub la-aan ma tagi karayno waan cabsanaynaa leanno waa bani aadam shaydaankuna una dhex gali karaa bal fiiriya dee waa shaydaankii waxaan imikana dhex socdaa shaydaanka iska qarta taasaan idin leeyahay inkastoo calooshiis yani hadalku maogtahay wanaaggiina aan jecelahay oon maogtahay hadalka aan dhammaysan karaynin waxa weeye ma deed iga raalli ahaado oo bal aan soo koobe bal hagaag u dhagaysta bal u fiirsada dib iskugu noqda wada tashada markaa dabadeedna go-aan fiican ka soo saara ood ummaddiinna iyo dadkiinna aad isku wada geysaan iyo ciise iyo gadabuursiyo aad walaalkii iyo ilmaabtiga ay isku ahaayeen iyo wada nolosha isku wada noolaayeen dib iskugu soo celiya sayla ciise oo idin sheeganay maad aragteen jabuuti ciise oo idin sheeganay maad aragteen dirdhabe ciise oo idin sheeganay maad aragteen mid yar baan ku darayaa inkastoo raalli iga tihi jabuuti bay mar xagaf yari ka dhex dhacday xaafadda ay dee jabuuti oo dhan mayn xaafad yar dhowr aqal dhexdood dee gabadhina adeertayoo deganeyd meesha ay babadalaysan oo cabsataa ii timid oo ii timid gurigii oo badbaadi tiri waxay wadataa ubad gadabuursiya wax kale ma cabsateen waayahay waan badbaadiyey waan hayey ilaa ay dhul wixii degayey kolkuu degayna aan kixiyon gurigeygii masaasaad doonaysaan inaad moogtahay ubadkiinni iyo carruurtiinni aad isku laylaysaan aad u laysaan iyo dumarkiinni war alcaqli yeesho
iga raalli ahaada si uu meel kastaba u gaadhana tabiya wixii caqli lehe ha dhegaysto wixii caqli lahaydna ha dhegaysto oo bal dib ha iskugu noqde saasaan jecelahay inaad maogti wanaaggu ku dhasho igana raalli ahaada wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ilaahayna garabkiina soomaali oo dhan garabkiina ilaahay soomaali oo dhan garabkiina ha noqo